بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أصحابتي ذقالي هو إذن سلامي سلام كدب وولاشين ودب صولابتي وان كعذر دارنا يا مددي ديريتي إذن كمقنا sidoo kale waxaan soo dhaweynayaa asxaabta cusub ee inagu soo biirtay muddadii aan kala maqnayn dhammaantiin waxaa idin leeyahay waad mahadsantihiin. waxaan ka cudur daaranayaa inaanan idin wadin ciwaan aan hore idinkugu ballan qaaday inaan idin soo gelin doono kaasoo ahaa hababka loo tarbiyeeyo caruurta, sababtoo ah waxaan wax ka bedelnay habkii aan cashirada usoo gudbin jirnay. waxaan ka dhignay kuwo musalsal ah oo isku wada xiran. inta aan wax la tarbiyeenin ka hor waxaa jirto meel ay tarbiyada ka bilaabato, taasoo ah marka horeba in caruurta loo dooro waalid wanaagsan. haddii aad hooyo tahay aad u doortid aabbo wanaagsan, haddii aad aabbo tahayna aad u doortid hooyo wanaagsan. sidaas darteed cashiradeena waxa ay noqon doonaan sidan. waxa aan ka hadli doonaa sida aad u dooranaysid qofka aad nolosha la wadaagaysid. sidoo kale waxaan ka hadli doonaa soo doonashada iyo qaabka ay noqonayso. waxaa kale oo aan ka hadli doonaa guurka, mashruuciyadiisa, shuruudiisa iyo arkaantiisa. sidoo kale waxaan ka hadli doonaa meherka ama waxa loo yaqaano sadaaqa. sidoo kale waxaan ka hadli doonaa xafladda arooska iyo qaabka ay noqonayso. sidoo kale waxaan ka hadli doonaa xuquuqda ay isku leeyihiin lamaanaha. intaas kadib waxaan bilaabi doonaa barbaarinta ubadka oo ah meeshii aan u soconay ama yoolkii aan rabnay. intii ka horeysay aan hore usoo sheegnay waa un iska hordhac insha Allah. guud ahaan marka tarbiyada waxaan u qaybinay 3 qayb. qaybta koowaad waxaan ku baran doonaa waxa loo yaqaano cilmu nafsi numu. waa cilmi aan ku baran doono isbebedelka ku yimaada jirka insaanka xilliga uu koritaanka ku jiro, laga soo bilaabo ilmaha marka uu kalo caloosha hooyadiis ilaa uu ka gaarayo marxaladda qaangaarnimada. qodobka labaad waxaan uga hadli doonaa tarbiyada islaamiga saxda ah oo loo baahan yahay in loo tarbiyeeyo ama loo soo saaro qofka muslimka ah. qodobka saddexaad waxaan uga hadli doonaa cuntada ugu wanaagsan ama ugu caafimaadka badan uu qaadan karo ilmaha laga soo bilaabo marka uu kalo caloosha hooyadiis ilaa uu ka gaarayo marxaladda qaangaarnimada. saddexdaas qodob oo la isku daray insha Allah waxaa inooga soo bixi doonaa ilmo dhisan jir, caqli iyo ruux intaba. cashiradeena intaas kaliya miyay ahaan doonaan? maya, insha Allah waxaa jiri doona cashiro kale oo barbar socda kuwaas, sida inaan idinla wadaago fikrad markaas igu soo dhacday ama ciwaano kale oo aan isleeyahay walaalaha wax badan ayay ka faa'iidi karaan. laakiin hadafkeena ugu weyn waxaa waaye barbaarinta ubadka. insha Allah waan ka hadli doonaa wax walba oo quseeya. cashirkeena maanta intaas ayuu ku eg yahay. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh.